السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا channel كينا Somali healthy lifestyle 1 أو على باين كلاس عنو بوجن أما هذا برتن يوتيوب كتالا. هدي أتكو عصبت هاي channel كينا لايك يا سبسكرايب يا شير بصار وايو وحا كيني ساينو channel كوينا هذا وعد بدن وجارو هدي هذي هورين لو جوكتينا آد بدن ما تصنتها بقرك سعودية هذا ثلاثة هيا كينغ سلمان oo 85 sano jira ayaa waxa uu 20kii bishan toddobaad 2020 waxa uu galay amaliyad aad yani u culus marka maxay loo eego amaliyadaha qaar kood inkastoo maxay yani medical facilities ku ay fududeyn karaan hadana amaliyad kamid ah amaliyooyinka waaweyn buu galay oo ah in laga jaray gall bladder-ka amaba waxay noqonaa xameetida sidoo noqonaa xameetidu waxay ku taalaa dhinaca midig maxay ka hooseysa beerku markaa sida maxay yani taandhadu ku lahaanaya hawstiisa marka kiishaba ku yaalo loogu tala galay ama ilaahay uu tala galay subhanahu wa ta'ala in uu ku ururiyo wixii bayl ah ama xameeti ah acid maxay digestionka ama mesela maxay grasa deficit-ka uu sameyn doonta cuntada ku jirta maxay mindhicirada sidoo kale qayb kamid ah ay ku degto maxay intestine-ka waxyaaba ku jiro maxay wixii saxarada iyo waxaas qayb kamidana ay dib ugu soo noqoto kaadida marka waxyaabahaas oo dhan ayay markaa maxay qabataa maxay xameetida waxa ku jira adigu boqorka maxay halkaas laga qalay oo maxay oo xanuun ka dareemay inay dhagaxaan gashay in si kala maxay oo xanuunsato caabuq kale ay u gashay adigu dhakhtarka maxay Malik Faisal at-takhasusi ayaa si degdega loo dhigay si emergency inkastoo Sacuudigu ay magaranaysa si yaro yani aad u sahlan u sheegeen hadana adigu boqorku waxa uu saaso maxay hawsha ku galay hadaba tamxidi mucjisada ay wax weeyii 22kii bishan toddobaad ويعني لبا عشان كدب أيه هذا نوع صوم مغضي الصقا هي محدي يعني محدي يعني محدي كسر غيب قلي شر محدي وكو شر وكو كل مية قولي يسوي زير ده يو إن كيس محدي بقرك وشرح يدوان محمد يو قلاقة في ربنا أو كتر سن حاشيني يو سي أونلاين محد كم مثلا شر وقول شر ماشي أو شركة كسر قلي وحويه dhakhtarka uu ku jiro King Faisal Hospital Specialist qayb kamida ayaa maxay uu ka soo galay Zoom-ka ka soo galay online ka jira inkastoo aad soo karto waa qayb kamida maxay qasrigiisii sidoo quruxda badnaa ee demography uu habaysnaa halkaas baa maxay markaa uu ka maxay ka waday maxay hawshiisa iyo waxa demography dawladdiisa ama maxay boqortooyadiisa ku saabsan ee ay shirka online ka jiray haddaba sidee ku dhici kartaa in magaranaysa laba cisho gudahood in uu kaga soo recover gareeyo amaliyada noocaasa oo aynu naqaano inay qaadato 2 weeks ama mesela 1 week maximum minimum ay magaranaysa qofku recovery ku qaadan karo isagoo 85 sano jira marka xogaa wali halkaas waxay medical waxa u baahan tahay in indha lagu yarhayo boqorku waxa uu ka tirsan yahay caailada soo xukumaysay Saudi Arabia ilaa 1920kii qarnigina dhaafay waqtigii la aasaasay dawladdan Sacuudiga hadda jirta Abdul Aziz oo ahaa boqorkii aasaasay oo dawladuna ay ku magac tahay ilaa hadda waxa uu magaranaysa qabay ugu yaraan 40 dumar ayuu guursaday noloshiisa gabadh kamid ah marka 40kaas ayaa waxay u dhashay rag gaaraya 7 nin oo magaranaysa xilkan maxay hadda ilaa hadda maxay xilka ku soo jira oo qayb kamid maxay ay yani ay ka soo galeen baha kale laakiin kuwa ugu nufuudka badan ama mesela ugu saameynta badan ay kamid yihiin gabadha loo yaqaano Hassa ama Hissa al-Sidiri oo 12 maxay qof u dhashay ayaa 7 wiil oo kamid ahaa ay kamid yihiin umarada ama mesela madaxda soo martay Sacuudiga waxa kamid ahaa boqorkii maxay dhintay Fahad waxa kale oo kamid ahaa boqorkan hadda jooga maxay Salman intii kale dhimatay laakiin nin ba soo haray oo la yiraahdo Ahmed bin Abdul Aziz oo kamid ah 7 nin kii ugu dambeeyay ninkaas baa hadaba jira oo Mohammed bin Salman ka inanka ah ee hadda maxay xilka u soo socda uu diiday inuu magaranaysa maxay aabihii dhaxlo marka odaygan hadda jooga ee King Salman waxa uu rabaa ninka kaliya ay isku bahda haayeen ee maxay xilka maxay yani mutaystay marka uu dhinto in aanu meesha soo gelin way haduu soo galo raggii magaranaysa Abdul Aziz dhalay way dhamaadeen ninka maxay Ahmed ee qabsanaya
ayaa waxa uu dhacay samxday inuu caruurtiisa markaa yani sida xilka ugu sii kala daayo marka King Salman waxa uu Maxamed Cabdilcasiis Maxamed bin Salman kan ama MBS kan u soo wadaa ee uu magaranaysa isagoo yani aan 30 sano maxay sanad dhamaysan ama dhowr iyo 30 jira oo aan wax khibrad lahayn hore waxba soo qaban tacliintiisa dhamaystiran waxa uu meesha sida madaxa ugu soo gelinaya weeye yani wuxuu doonayaa caa'iladii sideeriga ninka ka haray ee Ahmed inaanu meesha qabsan caruurtiisana markaa aanu keenin marka isagoo amaliyad inta la galay haddana in uu markiiba si degdeg u soo baxo yani social media soo gal waxa weeye waxa uu nafiinaya oo meesha ka saaraya in uu maxay boqorka dhintay in dawladdu isku kacdo way dawladdu ilaa hadda maxay yani arrimo aad u waaweyn oo يعني متحابين كرا أي إلا هذا محيدي فرق كل شرطة سيبا محيدي مركل الله يمدو عدين وقت حريتك عدين وقت وحيابك الاقتصادية نقالها عدين وقت محيدي تقال ذيك الشيء دولدو عدين وقت نوحي مكان سا يعني كلتشر كي وضعكو واحد بدن وكبدليني كنير وضعكو دري مركل محيدي دق كينيس وحوي مكان سا وضعكو إنه ده يعني أنا أخترك حتى الله بعشق سيد الشيء وحوي يعني واحد وكبغنا يا إن مكان سا حلكة ومحيدي قلناس كو أبورما intaasaynu kusoo gabagabeynaa maanta xalqadeennan fadlan like saar fiidiyoga si uu dad badan u gaaro subscribe-na channelka si wixii cusub ku soo gaadhaan waa Dr. Cabdilaahi Wacays oo idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh